degmada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool waxaa saaka xilli aroornimo gaaray ciidamada Somaliland oo ku gaashaaban hubka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaas dagaal ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo ciidamada Somaliland sida aanu ka helno ila u dhow waxa ay noo sheegeen in halkaas uu saaka ka dhacay dagaal balse markiiba ciidamada Somaliland ay la wareegeen gacan ku haynta guud ahaan degmada Tukaraq ma jirto ilaa hadda khasaare soo kala gaaray labada dhinac oo la xaqiijiyay balse wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in uu jiro dhaawacyo labada dhinac sidoo kale waxay noo sheegeen dadka deegaanku in ciidamada Somaliland ka gadaal qabsashada degmada Tukaraq saaka ay u sii jeesteen dhanka iyo xadka kala qeybiya gobolada koonfureed iyo gobolada waqooyi halkaas oo lagu magacaabo geedka iyo cada oo qiyaastii wax ka yar 15 kiiloomitir u jirta caasimadda Puntland ee Garowe arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sugan yahay magaalada Garowe isla markaana uu maanta Garowe kula balansan yahay qaar ka mid ah ismada dhaqanka SSC oo maalmihii ugu dambeysay ku shirsanaa deegaanka Barowada wixii ka soo kordho dagaalkaas iyo xiisada dagaal ee soo cusboonaatay wararkayga dambaan idinku soo gudbinayna waa Abbas Madani isuudha